kamaalow waan kaa aqbalay xumaantaada ma rabno wiilkanagii baa tahay wiil soomaaliyeed ayaa tahay xumaantaada inaan wadwadnoon cirdigaaga iyo nasabkaaga iyo xumaan inaan kuu sheegna ma jeclin qof ree youtuberley ah iyo qof soomaali ah oo jecel ma jiro culumi iyo caamaba ma ana waxa jiira wax qiila waqaala yani waxaas ama tahay waxa war degdega ayaa hadda naga soo gaaraya cabdul waxaa la dhahaa kamaal cabdul ayaa la dhahaa marka kamaal cabdul channelkiisa hadda wuxuu soo gaariyay 1 saac ka hor isaga iyo nin saaxiibkii ama walaalkii ah dabcan way isu egyihiin xagga shakliga laakiin waxay isku yihiin iyaguna noomayna sheegeen aniguna horey umaanasi aqoonin hadda waxay noo sheegeen wax walba oo xaqiiqadii ah inay soo ogaadeen ilaahayna uga toobad keeneen wixii kiiska geliyeena inay sheegeen oo caddeeyeen annagana haddaan Soomaali nahay waa idinka aqbalaynaa kilibka ka horeeyay waxaan karbaashay cabdul waan karbaashay ama kamaal cabdul waan karbaashay karbaashkayguna wuxuu u badnaa oon eedda saarayay mar walba gabadheennii hani ayaan saarayay sababta qofta hooyada ahayd ee ilmaheedii inkirtay zawjada ahayd ee marwada ahayd ee la qabay ee ninkeedii inkirtay aan aabbaheed aabba aan ahayn uu meheriye aabba ka dhigatay waa ayada qof walba oo Soomaaliya meesha waxa uga cadaa kiiska ugu badan iyo dembiga ugu badan iyo khaladka ugu badan inay leedahay gabadha la yiraahdo hani cabdulna lama saaraynin cabdul kali waxaan saarnay ka umma Soomaaliya waxaan saarnay cabdul war cabdul aabbihi zawjada qabay baa kula hadlay ninkii baa kula hadlay aabba Cabdisalaam wuu kula hadlay oo zawjkeedii ama ninkeedii uu kula hadlay gabadheedii najma kula hadashay aabbaha baa lala soo hadlay aabbaha odaynimo qaabkii lagu yaqaanay buu u hadlay wixiina wuu iska baryeelay maxaad ugu sii dheganayd ood kilibyo u sii duubaysay mar hadiiba lagu yiri oo dhinaca lagu qabsaday oo lagu yiri 8 caruur abay qoftani dhashay nin rag abaa tahay adiga laftaadu xaas bay ku noqotay oo de wax walba lagu qariyayba waad aragtay guntaad soo taabatay maxaa kuu kalifay inaad isdhariijiso ama is adkayso bay ahayd oo sheekadii lagu haystay laakiin qaabku siduu u yaalay gabadhii intay ka tagtay Canada Faransiiska aaday inay Turkiya aroos nin kula gasho meherkeedina afkooya ka dhaco nin aan aabbaheed ahayna ay tiraado waa aabbahay uu meheriyo nin waliba wuxuu fahmayay dulmiga iyo khiyaamada iyo shirqoolku meesha uu ka imaaday iyo dhaqan xumidu inuu ahaa hani ilmaheedii intii ka sii badan waxay samaysay ninkiiba inkirtay oo inayna magaranaysaa mar waxay tiri ma aqaanaba ninkan marna waxay tiri ninkan ciyaalkiisaan u kaxeeyo meesha ugu geeyay oo hooye ahaan baan ugu geeyay bay tiri meher iyo guur iyo ilmahan inay dhashay dee caqli buu ilaahay inoo sameeyay dulmiga ayadaa lahayd ayadaana karbaashka kula dul dhacnay haddaan nahay reer youtuber iyo reer social media haddaan nahay ayada ayaanu karbaashnay qof walibana wuu arkay karbaashka inay leedahay kali waxaan kugu haysanay walal adiga waxaan kugu haysanay hadiiba warku ku cadaaday maxaa ku agdhigay aabba warkiisi maxaad u qaadan weyday maxaad wiigii horeba sheekada isaga fixri weyday maxaad gabadheedii u dhageysan weyday maxaad odaygeedii u dhageysan weyday ayaan kugu haysanay laakiin waxa laga yaabaa bini aadam baa tahay oo mar walba inaad islahayd war reer social media waxaan soo boonbooniyay inaad islahayd baa laga yaabaa laakiin caawa waan kaa aqbalnay kitaabka rabbul caalamiin markaad nala soo hor fariisatay 30 minute kadib markay ku cadaatay sidaad noo sheegtay naxnu naxkumu adhawaahira wallahu yatawalla saraa'ir annaga daahirka ayaan xukminaynaa sidaad noo sheegtay 30 minute kadib markay ku cadaatay ama 30 minute kadib inaad soo fariisatay youtube-kii kitaabkii kariimka ahaa daahirnaa ee kalaamu rabbil caalamiin intaad nala hortimid aad noogu martay inaadan hawshan waxba ka ogeyn markay maanta hadda ku cadaatay inay tahay hooyadii ilmahan dhashay 8 canug ee 3 dhimatay 4 nool yihiin odaygan xaaskiisii ahayd markaa dadkii qaraabadeedii iyo ehelkeedii ku cadeeyeen facebookii ka soo cadaysatay adiga wiilkuba labadiinuba baaritaan ah samaysanay wax idin cadaaday innal xalaala bayyin wa innal xaraama bayyin wa baynahuma umuurun mushtabihaat markay wax ku cadaaday intaad dadkii soo hor fadhiisatay kitaab inaad noola timid waan kaa aqbalay
kamaalow waan kaa aqbalay xumaantaada ma rabno wiilkanagii baa tahay wiil soomaaliyeed ayaa tahay xumaantaada inaan wadwadnoon cirdigaaga iyo nasabkaaga iyo xumaan inaan kuu sheegna ma jeclin qof ree youtuberley ah iyo qof soomaali ah oo jecel ma jiro culumi iyo caamaba intanadaba waan ka hadalay culumaa ka hadashay caamaa ka hadashay waa arrintani way noo cunami weyday waxaan go'aansanay aabbahaas iyo carruurtaa ooyaysa hooyadood inaan u soo dhicinno diinta ilaahay baa na faraysa xumaan nebigeennu wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku zuuliyo qofku hadduu munkar arko iyo xumaan fain lam yastadic fabilisaanihi carabkiisa annaga carab bay nagaga soo ururtay fabilisaanihi carabkiisa fain lam yastadic fabiqalbihi qalbiga ka nac biyadihi ayaa la yidhi gacanta ku qabo haddaadan awoodin bilisaanihi carabka ku qabo waata annaga hadda reer social media naga soo hadhay weeye bal dhegaysta ta kale waxa weye qalbiga inaan ka nacno maanta marka qalbiga loo gudbi maayo annaga oo awoodna inaan afka ka hadalno walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hadday reer youtuberley intay istaageen culumi iyo caamaba ayna arrintan falanqayninna xalkani ma imaadeen aabbahan in xaaskiisii loo soo dhiciyo aabba cabdisalaam ilmahan hooyadood in loo soo celiyo inkirtayba dhalitaankoodii iyo inay dhashayba inkirtay kuwo aakhara jira iyo kuwo adduun joogaba ma ayna dhacdeen dadkii aabbihii dhalay gabadhan hani a dhalay iyo walaaladeed gabdhi iyo wiilalba qaraabadeedii hooyooyinkeed habaryaraheed inaan cirdigoodii badbaadinno oohinta ka tirno ilmahooda la inkiray u soo celinno hooyadood mayna dhacdeen haddaanan qayliyin qayladani marka wanaag bay keentay cabdulna way badbaadisay waxaan leenahay cabdulow wixii kaa dhacay ee khalad ahaa ee reerkaa gabadha aydin dhex maray haddii sidaa aad noo sheegaysa ay tahay laguma haysto ilaahay agtiisa laguma haysto nusuusta shareecada ayaana inoo caddaystay waxaan anagu ka leenahay maaha afkanaga ama doonitaankanaga waa kow toobadkeenkan iyo inaad isdhiibtayna ayadana waan kaa aqbalnay walaalkanaad tahay ilaahay baa ku badbaadiyey annagana walaalkana waxaanu kaaga daba dhawaaqaynoonu halkaa guntigaa kuu qabsannay inaannu ku badbaadinno ee inaan ku ceebayna maanaan rabin cabdulow hanina waxaan leenahay hooyaad tahay shalaysaad hooyo u ahayd baad maanta u tahay maradaa kaa dhacday xoogaa khalad baad samaysay waxaa laga yaabaa inuu shaydaan kaa tambadiyey waxaa laga yaabaa shahwadu inay kaa tambadisay inkastoona garanaynin hooyo 20 sano ka hor reer lahayd annagu xaggeen joognay 20 sano ka hor xaqiiqatan dunidan waan joognay dabcan laakiin ciyaal yaryar baanu ahayn xilligaasaad hooyo ahaydood wax dhalaysay 8 carruur aad adduunkan ku soo kordhisay ood keentay ood adigu dhashay baad inkirtay maanta wax shahwo ah iyo wax kaa xoog badiyataa uma malin laakiin shaydaan iyo caafimaadka xaggiisa laga yaabaa marka hooyaa tahay intan ka badan ku saarnaan mayna adiguna sidaa uu cabdul ninka la yidhaha kamaal cabdul uu bannaanka isu soo dhigo adigana laga bilaabo maanta gurigaagii ku dheelma ubadkaagii raadso ilaahayna subxaanahu wa tacaala dembigii aad gashay ha kaa dhaafo kaad waalidkaaga ka gashay kaad diinta islaamka ka gashay kaad cirdigaagii ka gashay kaad ninkaagii ka gashay kaad ilmahaagii ka gashayba ilaahay uga toobadkeen ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dhammaan dembiyada ilaahay wuu dhaafaa sidaas ayaan ku leenahay horay baad iigu soo dhegaysateen walaalkeen cabdul iyo warkiisii iyo faahfaahintiisii